بسم الله الرحمن الرحيم وعن هلكن كسلاميا دمان bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Finland qaasatan jaaliyada guud ee galmudug ee ku dhaqan dalkan Finland sanadka 2023 jaaliyada guud ee galmudug Finland waxyaabihii u qabsoomay ayaan halkan idinkugu soo gudbinayaa anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada guud ee galmudug dalka Finland intaan ku guda jirnay sanadka 2023 waxaa inoo qabsoomay oo aan xooga saarnay familada caruurta dhalinyarada iyo dadka waaweyn haddaan u soo dago dhalinyarada intii aan ku guda jirnay sanadka 2023 waxaan u qabanay oo aan ka taageernay sportiska oo aan xooga ku saarnay in aan u qabano garooman koobab iyo xilliyada fasaxa ah in aan u wadno qayb ka mid ah dalkan Finland magaalooyinkiisa aan u balamino dhalinyaro kale iyo seminaarooyin aan u talagalnay ama lagu taageerayo aqoontooda iyo jahayn ayaga lagu jahaynaay gudaha dalkan iyo dibadiisaba intii aan ku guda jirnay sanadka 2023 waxaan sibood garaynay oo aan ayaga naftigoodba aan taageero u fidinay dadka waaweyn oo ay u horeeyaan ragga in aan garoomanka ayaga naftigooda sportiska ah aan ku taageernay oo qayb weyn ay jaaliyada ka qaadatay intii lagu guda jiray sanadka 2023 waxa ay jaaliyadu qabatay seminaaro kor loogu qaadayo wacyiga familka ama reerka ama qoyska Soomaaliyeed iyo talagelin la siinayay iyo horumarin si ay wadankan qayb ugu qaadan lahaayeen ama ugu korsan lahaayeen caruurtooda ay jaaliyadu qabatay intii lagu guda jiray sanadka 2023 jaaliyadu waxay kulamo soo dhaweyn iyo u sameysay aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo xildhibaano oo nooga kala yimid dalka iyo dibadiisaba intii lagu guda jiray sanadka 2023 jaaliyada waxay xoog saartay in kor loo qaado hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo suugaanteena Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen cuntadii quruxda badneed ee Soomaalida lahayd iyo suugaanteennii aadka u quruxda badneed ay u soo bandhigeen keeneenna fanaaniin iyo dad magac ku leh bulshada Soomaaliyeed ee dunida intii lagu guda jiray sanadka 2023 jaaliyada waxay qabatay ama taageertay ama ku wacyigelisay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Finland doorashooyinka ama isbedelada ka dhacay dalkan Finland ee ugu horeeyaan doorashadii baarlamaanka dalka Finland ee lagu soo doortay ra'iisul wasaaraha dalka oo hadda hogaaminayo dalkan Finland 4 sano soo socda waxay tala ka siisay dadka ku habboon iyo dadka Soomaalida wax u tari kara ama meelaha muuqda geey kara aragtidooda ayagoo ka kaashanayso aqoon-yahano ama dadka ku khibrada leh in mataqaanaa wacyiga bulshada loo iftiimiyo meelaha ku habboon intii lagu guda jiray sanadka 2023 jaaliyadu waxay qabatay qorsho sanadeedka 2024 oo sanadkan ugu soo socda ah in qorshaha la dejiyo sidii waxqabadkan iyo waxqabadyo kale oo fara badan loogu dardargelin lahaa bulshada Soomaaliyeed ama loogu qaban lahaa howlahaas oo dhan intii sanadka 2023 lagu guda jiray waxay jaaliyadu iyo guddigaba u mahad celinayaan dhammaan intii qayb ka ahayd howlahan quruxda badan ee la soo qabtay jaaliyadu soo qabatay haday ahaa lahayd ururada waaweyn ee dalkan Finland ka dhisan haday ahaa lahayd shakhsiyaadka quality-ga ama waxtarka u leh ee bulshadan aan la noolnahay ee dalkan Finland ama Finnish-ka ah ee naga taageeray iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo talada na siinay ama na taageeray aad iyo aad ayaa u mahadsantiin
dhammaan waxaa idin leeyahay sanad wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadka xiga kuwii ku gaara bashbash iyo barwaaqo annagoo idinkugu mahadcelinayna dhammaan xubnaha jaaliyadda oo aniga ugu horeeyo